السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub. malaa'igtu waa makhluuqaad uu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka abuuray nuur una abuuray inay caabudaan ayna adeecaan wax kasta uu Ilaahay amrana ay sameeyaan. muuqaalkani waxaynu ku soo qaadan doonaa malag kasta iyo magaciisa iyo hawsha uu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u xil saaray sida iyo la socod wanaagsan. haddii aad ka heshay fiidiyowga fadlan like saar gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub asxaabtaadana u sheer gareey. taasi waxay inoo tahay dhiirigelin aad nagu dhiirigelinayso in aynu sii wadno muuqaalada noocan oo kale ah. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu malag kasta u xil saaray shaqo gooni ah, waxaana kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo sunnada nebiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee lagu xusay malag kasta magaciisa iyo shaqada uu qabto. malaga koowaad waxaa magaciisa la yiraahdaa Jibriil. dhowr jeer ayaa magaciisa Qur'aanka Kariimka lagu sheegay, wuxuuna leeyahay magacyo kale sida Ruuxul Qudus iyo Annaamuusul Akbar. shaqada loo xil saaray Jibriil waa in uu waxyiga gaarsiiyo nebiyada, wuxuuna u dhaxeeyaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo nebiyadiisa. malaga labaad waxaa la yiraahdaa Mikaa'iil. hal mar ayaa Qur'aanka Kariimka magaciisa lagu sheegay, waxaa loo xil saaray in uu roobka soo daayo. malaga saddexaad waxaa la yiraahdaa Israafiil, wuxuuna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u xil saaray inuu suulka afuufo. malaga afraad waxaa la yiraahdaa Malakul Mawd. hal mar ayaa lagu sheegay Qur'aanka Kariimka, sidoo kale waxaa loo yaqaanaa Casraa'iil, balse magaca Casraa'iil Qur'aanka iyo xadiis nebi midna laguma sheegin. malagani waxaa loo xil saaray inuu dadka nafta ka qaado. malaga shanaad waxaa la yiraahdaa Maalik, wuxuuna Ilaahay u xil saaray inuu maamulo naarta, wuxuuna hayaa furaha naarta. malaga lixaad waxaa la yiraahdaa Ridwaan, wuxuuna Ilaahay u xil saaray inuu jannada maamulo, wuxuuna hayaa furaha jannada. malaga toddobaad iyo malaga siddeedaad waxaa la yiraahdaa Haaruut iyo Maaruut. magacyadooda ayaa Qur'aanka Kariimka lagu sheegay, balse shaqo gooni ah looma xil saarin, waxayna leeyihiin qiso la yaab badan. malaga sagaalaad iyo malaga tobnaad waxaa la kala yiraahdaa Munkar iyo Nakiir, wuxuuna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u xil saaray qofka markuu dhinto inay qabriga ku weydiiyaan 3 su'aalood. waxaa jira malaa'ig magacyadooda aanan la sheegin, balse shaqadooda la sheegay, waxaana ka mida malaa'igtaasi Xamalatul Carsh. Xamalatul Carshi waa 8 malag, waxaana loo xil saaray inay sidaan carshiga Ilaahay. sidoo kale waxaa ka mida malaa'igta magacooda si toosa looga sheegin, balse shaqada ay qabtaan la sheegay, malaa'igta lagu magacaabo Al-Xafada, waxaana loo xil saaray inay bani aadmiga ilaaliyaan. Khazanatul Janna waa malaa'ig loo xil saaray inay ahlu jannaha soo dhoweeyaan. Khazanatun Naar sidoo kale waa malaa'ig loo xil saaray inay soo dhoweeyaan ahlu naarka. As-Sayyaaxuun waa malaa'ig loo xil saaray inay soo xaadiraan meel kasta oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala lagu xusayo. Al-Mucaqibaat waa malaa'ig loo xil saaray sidoo kale
inay ilaaliyaan bani aadmiga. zuwaarul baytilmacmuur waa malaa'ig loo xil saaray inay baytulmacmuurka siyaartaan, wuxuuna baytulmacmuurka ku yaalaa samada 7. asafara waa malaa'ig qorta wax kasta uu bani aadmiga ku hadlayo, khayr iyo sharba. Allahu aclam. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين